Assalaamu calaykum. Soo dhawaada asxaabta. Mar kale ku soo dhawaada channelka Nasiir Graphics. Maantay muuqaalkeenan waxa aan doonayaa in aan ku sharxo sidee loo sameeyaa letter masking ama letter portrait wax loo yaqaan oo ah runtii sawir iyo qoraal sidee la isu dhexgeliyaa. waliba sawirka qayb ka mid ah qoraalka gudaha loogu geliyaa, qayb ka midna dibadda loogu soo bixiyaa. Waa hagaag, balse ka hor inta ayna u guda galin casharkeena waxa iga xasuusinaa fadlan walaal haddii aad ku cusub tahay channelkan oo ay tahay markay kuugu horeysay ee aad na soo booqatid, subscribe garee oo subscribe-taada noogu hiili. sidoo kalena muuqaalkan haddii aad ka heshid like garee, haddii aanad ka helin dislike garee, waayo labaduba faa'iido ayay noo leedahay oo YouTube muuqaalka si iskiisa ayuu u baahinayaa. sidaas si la mid ah haddii aad taqaanid ruux jecel barashada graphic design-ka, la wadaag si muuqaalka uu gaaro inagana channelkeena uu u baaho. waa hagaag asxaabta, waxaynu guda galaynaa markan habka ama qaabka aynu samayn lahayn letter portrait-kan had yar hortiin idinkaga muuqda ayaynu isla samaynaynaa. waxba yaanan hadal idinku sii daalin anigu hadda Photoshop-ka aan isticmaalayo waa Photoshop 2015. adigu Photoshop-ka aad doontid waad isticmaali karaysaa. please midaas ayaan mar walba ardayda xasuusinayaa. Photoshop-ka aad doontid waad isticmaali karaysaa no matter midku ahaadaba, kuwa dambe iyo kuwii horeba waa isku wada mid. marka ugu horeysa waxaad tagaynaa file ayaan tagaynaa. fileka markaan tagno waxaan leenahay new ayaa ka tagaysaa ama control n midka ku roon waa isku mid. wuxuu ku keenayaa dialog box-kan meeshan document type-ka ay ku qoran tahay waxaad kasii tagaysaa international paper. kadib size-ka waxaad ka dooranaysaa Allahu musta'aanu A3. kadib okay aad leedahay. okay markaad dhahdid warqadan hadda waa portrait ama waa joog waxaa ka dhigaysaa mid landscape ah. waxaad tagaysaa image, waxaad imaanaysaa image rotation, waxaad kasii tagaysaa 90 clockwise-kan. okay hadda waa landscape. kadib waxaad yeelaysaa control 0 ayaa leedahay. warqadda hal mar ay soo weynaanaysaa oo laakiin waxay u soo weynaanaysaa qaab fit ah. Photoshop-kaaga ayay waxay ku noqonaysaa qaab fit ah, ama screen-ka dhaladaada ayay waxay ku noqonaysaa qaab fit ah oo yacni cabir markaasi aan zaa'id zoom ahayn ama zoom-kuna aan aad u yarayn mid ah. waa hagaag, markay xaalku sidaas u marayo control minus qabo, hal mar gadaal u celi, control minus kala qabo. okay halkaas aan ku celino. text tag anigu hadda waxaa ii dalban fartan lagu magacaabo Cooper Black Regular. fartaas ayaan isticmaalayaa. adigu fartaad doonto isticmaal. halkanna waxaan isticmaalayaa markii aan textiga ku dhufto meeshan fartii magaceeda ii imaanaysaa, inta cabirkeedaan ka ogaanayaa, inta waa alignmentiga, waa halkanna waxa weeyaan waa colorkii markaan ku dhifto wuxuu keenayaa dialog box-kan ayaa soo boodaya oo colorka. okay anigu waxaan dalbanayaa marka hadda colorkan ayaan ka dalbanayaa, colorkan ayaan isticmaalayaa. waa hagaag, kadib halkan ayaan okay ku leeyahay. kadib xarafka Z ayaan qorayaa. kadib control A ayaan leeyahay. kadib farta halkan ayaan ka weyneynayaa. kadib okay ayaan leeyahay. kadib Z-ka shift ayaan qabanayaa, darafkan kore ayaan sidaa u sii weyneynayaa. shift ayaan qabanayaa, darafkan hoose ayaan weyneynayaa. shift ayaan qabanayaa, darafkan kore ayaan weyneynayaa. farta waxaan ku aadinayaa dhexdan. kadib enter ayaan leeyahay. waa hagaag, sidaa aragtidba sidaa u jeedid waa kaasa. intaa markaad samaysid dabcan qaabka aan doonayno waa qaabkan aan isla soconayaa. waa hagaag, image-kan ayaan soo qaadanayaa. haddii image-kan qaabka aan meeshaan u keeno aan ku tuso isagana aan iska xiro. image-kan wuxuu ii yaalaa halkan ayuu ii yaalaa. waa kana dabcan qadka ayaan kala soo degay. adigu waad helaysaa oo waxaan kuu soo dhigayaa videogan description-kiisa hoose ka fiiri ama commentiga ugu horeeyo linkiga ayaan kuu soo raacinayaa. labadaas meelba waad ka daydaynaysaa.
kadib image waad furaysaa. Image-kan background-giisa ayaan iska jaraynaa. Si aan u jarno waxaan imaanaynaa magic wand tool-kan ayaan imaanaynaa. Magic wand tool-ka tolerance wax loo yaqaan ayuu wataa. Tolerance-giisu waa inuu ku ahaadaa 32 ama 32. halkan ayaad ku dhifanaysaa. kadib waxaa leedahay control x. background-gii waa iska jartay. move tool-ka tag, kadib sawirkan soo qaado oo waxaad keensataa halkan. okay, sawirkii sidaan u jeedno hadda dhankan ayuu u jeedaa. si aan dhankan ugu soo aadiyo waxaan leeyahay control t markaan dhaho, kadib right click ayaan ku leeyahay mouse-ka. kadib waxaan dooranayaa flip horizontal ayaan ku dhifanayaa. sawirkii waxaad aragtaa inuu hadda dhankan kale uu igu soo jeestay. waa hagaag. sawirka markuu sidan yahay waxaad samaynaysaa shift qabo, darafkan hoose sidaa u soo jiid. dabcan waa aragtaa darafkan hoose sidaa u soo jiid, halkan u soo badi, xaggaasna sidaa dheh. waa hagaag. markuu sidaa yahay waxaad samaynaysaa marka waxaad samaynaysaa hadda sawirka dhanka layerska imaw, xaggan imaw. waxaad fiirisaa dhanka layers inuu ku saaran yahay hubi. hadduu generalist ka saaran yahay sidaan uu noqonayaa. haddii uu path ka saaran yahay waxba arki maysid. waa in uu layer ku saaran yahay hubi. kadib z-ka hadda waa ujeedaa Soomaan. xarafka z-ka ah iyo sawirka image-ka aan marka halkan loo yaala keebaa soo sareeya. waa inuu sawirka soo koreeyaa. haddii aan sawirkan soo jiido oo aan hoos u soo dhigo halkan ku daayo waxaad aragtaa inuu hoos maray oo markaasna maxaan ku yiraahdaa xarafkii ama letterkii z ama z-kii uu kor soo maray. soo marka waa in maxaan ku yiraahdaa uu sawirka koreeyaa. waa inuu sawirka koreeyaa. marka right click dheh sawirka waxaad imaadaa create clipping mask. waa isdhexgeli waaye. waa farta iyo sawirka isdhexgeli way isdhexgaleen. waxaad aragtaa image-kii gudaha ayuu galay. image-kii gudaha ayuu galay. so sawirkan dib ugu laabo waxaad aragtaa in maxaan ku yiraahdaa uu yahay face-kan qaybtan sanka iyo garka iyo afka iyo foodan hore ay xogaa banaanka u soo baxsan tahay. si marka aan qaabkaas u sameeyno waxaad yeelaysaa kan iga xir uma baahni hadda. waxaad yeelaysaa dabcan sawirka ayaad koobiyeynaysaa. control j markaad dhahdid halkan oo hadda suul yani gacanta ii saaran tahay control qabo. kadib halkan marta gacantii markaan control qabtay gacantii hoosteeda box yar ma imaaday. boxkaas haddaan control ka daayo waa kaas. haddaan qabto waxaas baa imaanaya. kadib meeshaas click ku dheh. sawirka fiiri sidoo noqday. isaga dhan waa uu highlight gareysmay. waa hagaag. intaa kadib waxaad samaynaysaa halkan imaad. kadib waxaad leedahay add layer masking ku sameey. layer masking igu dar. soo marka hadda layerkan meeshan hadda layerska imaw halkan waxaa kusoo darsamay layer maski. midkii koobiga ahaa waa sawirka. midkan maahanaya kan maaha. waa midkii kale kan aan ka koobiyeynay. waxaan ku sameynay add layer mask aan ku sameynay. soo marka hadda fiiri halkan madowga ah click ku sii. kadib soo dhaqaaq waxaad imaadaa brush tool-ka isaga wuxuu wataa normal iyo opacity iyo follow-ga iyo opacity waa inuu 100% ku ahaada. kana 100 modelkana waa inuu ku ahaada normal. xaggan imaad meesha kore waa in ay black ku ahaataa. halka hoosena ay white ku ahaataa. intaa markaad samaysid kadib waxaad samaynaysaa uu brush tool-kana ku dalban yahay. kadib waxaad yeelaysaa halkan ayaad tirtiraysaa. halkan ayaad aayar u tirtiraysaa. waa hagaag. xagga kore ayaad tirtiraysaa. aayar. waa hagaag. soo maaragtid. waa hagaag. sidaa markaad samaysid dabcan shaqadu waa intaas. xarafkii aad ku soo noqonaysaa z-ka
inta ayaad laba mar klik siinaysaa. meeshan stroke ayaad ku dhifanaysaa. stroke ayaad furaysaa. stroke markii aad furtid waxaad sameynaysaa stroke midabkan EC baa leedahay. okay baa leedahay. okay halkan dhexda ku dhifa laba mar klik farti weeyaan waxaasaan kugu dalban ugu yaa ha isdhihin xitaa mugdigan faraha badan. okay meeshan daaqadan yarta fur kadib qalinka yarka backgroundigan white ka ku dil dhifo oo hal mar klik sii kadib okay dheh. kadibna move toolka tag okay dheh apply gray. waa hagaag control minus qabo idaal isaga celi xogaa. kadib letterka u tag kadib halkan ku dhifo madowgan soo dalbo. waxaan rabaa inaan meeshan wax ku qorto. waa hagaag hagaag hagaag. okay okay letter so marka white ka dhig. halkan imaw laba mar klik ku sii. okay stroke u fur isna okay dheh. letter midkan soo copy garee control J dheh kadib soo drag garee halkan keen letter birth rate. birth rate or birth rate birth rate sida u qortid. okay halkan keen isagana. waa hagaag good job ayaan idin leeyahay. waa dhameynay dabcan waxaad u jeedaa qaabkaasi aadka u fudud ayaad u sameynaysaa markii aad doonaysid letter birth rate qaabkee loo sameeyaa. adigu xataa haddaad doontid bar oo fiiri cadaanka siday u sharxiyaan waa sidan oo kale. haddana sidaas ay tahay luuqadaadii Soomaaliga afkaagii hodanka ahaa ayaa lagugu sharxayaa halkan. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan like garee haddii aanad ka helina dislike garee. labaduba anaga faa'iido noo tahay sida aan muuqaalkan horantiisba kugu soo sheegay. sidoo kale haddii aad taqaanid ruux jecel ama qof saaxiibkaaga oo daneynaya barashada graphic design-ka halkan u sheeg waa madashiisii ha ku soo hirto. waa idin salaamaya dhammaan asxaabta. salaamullaahi calaykum. inta aynu muuqaalkiisa xiga dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. waa tahay dabcan waxa aan ilaaway waa kistan yar ay halkan ka muuqata waayo muuqaalkan waxaad u jeedaa sawirkii in si fid ah oo micnihii wada dhameystiray inuu halkan ugu jiro. marka si fida inuu halkan ugu jiro. marka dabcan kanna waa inaan saas ka dhignaa waan fid ka dhignaa. marka kan waxaad tagaysaa layerkan meesha layerska fiiri iyo kan ayaad waxaad isla qabanaysaa. kan markaa ku dhifatid control ayaad qabanaysaa kanna waa qabanaysaa. labadan layer ayaad highlight garaynaysaa. kadib markuu sidan ku noqdo halkan ayaad imaanaysaa shift ayaad qabanaysaa oo hoos ayaad usoo jiidaysaa. dabcan waxaa aragtaa in uu banaanka usoo baxay. sideen ku xalinaa marka kadib waxaad tagaysaa layerkan layer maskiga ee madowga ayaad ku dhifanaysaa. kan madow kan maahan kan madow ayaa laga rabaa. kadib waxaad soo baxaysaa brush toolka imaaw. brush toolka markaa ku dhifatid iska fiiri meesha kore normal makuu yahay opacity-ga 100 makuu yahay flow 100 makuu yahay. dabcan meeshan imaaw meeshan kore black makuu tahay. marka intaa hubisid kadib brush toolkan uu ku dooran yahay ayaad sidaan u tirtiraysaa. sidaas u tirtiraysaa dabcan waa kaasaa oo hadda waxaad aragtaa move toolka tag waxaad aragtaa midkan iyo midkanba inay yihiin same oo markaasi ay isleeyihiin. waa hagaag intaas ayaan idinka ilaaway. keep going ayaan leeyahay. shaqo wacan you can do waad samayn kartaa.